ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha ONLF madaxda iyo kaadirka iyo taageerayaasha ururka ee soo ajiibay codsigii ka soo qaybgalka shirweynaha shanaad ee ururka oo loo ballansanaa berri inuu ka dhaco oo uu ka qabsoomo hoolka sayidka muddo toddobaad ka yar inay ergo ka kooban 500 ilaa 600 oo qof ay ka soo ruqansadaan 11 gobol ee dalka uu ka kooban yahay magaala madaxda Addis Ababa Harar Dirdhaba runtii waa arrin muujinaysa kalsoonida ka dhaxaysa xubnaha ururka iyo madaxdiisa oo farxad gelinaysa isla markaana waxay tusaale u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka waagii hore waxaanu ahayn urur madax bannaan oo hawlihiisa ku qabsada xeerkiisa oo kali ah iyo kolba duruuftiisa gaarka ah laakiin hadda waxaan dhaxnimid dal kale oo dal qaanuun iyo hay'ado gaar ah leh oo mid walba maaragtay doonay in shuruucdiisa iyo qaanuunkiisa loo hoggaansamo waxaad la socoteen ururka nibe oo maaragtay qaabilsan doorashooyinka iyo arrimaha xisbiga inay soo saareen wareegto ay leeyihiin bil gudahood waa inay ku qabsadaan maaragtay xisbiyada oo aan kamid ahay xisbiga ONLF uu kamid yahay inay ku qabsadaan shirweyne haddii kale uu marka sharcigooda uu noqonayo marka wax aan waxba ka jirin annaga oo arrinta ka duulayna ayaan ururka nibe xafiiskiisa ku qaabilnay Addis Ababa arrintaasaan kala hadalnay annagoo u sheegayna duruufta iyo xaaladda siday tahay iyo shuruucda iyo qawaaniinta lagu qaban karo shirweyne iyo wax dhan kala hadlayna oo ka wada hadlayna kulankaas Addis Ababa runtii waxaan kala soo noqonnay fariin ah in la qabto shirweynihii muddada marka iyada lagu qabto oo aan gadaal looga dhicin muddadaas oo ku ekaanaysa 18 intaan u malaynay bishan ku ekaanaysa ololahan galnay waxaan isku daynay in aan muddada kooban aan shirweynihii ku qabanno ergooyinkii baan kala dirnay fariimihii baan kala dirnay runtii waxay ahayd runtii aad maaragtay arrin loogu farxo in maaragtay shirweynihii uu qabsoomi karo muddada kooban maanta oo aan joogno oo ay bishu tahay 16 waxaa ku sugan magaalada Jigjiga ugu yaraan 500 oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay waxayna diyaar u ahaayeen inay ka qayb galaan shirweynaha shanaad loo ballansanaa maalinta birri ah nasiib darro ururka nibe wuxuu soo saaray oo uu na soo gaarsiiyey fariin oranaysa waxa weeye in aad maaragtay kama soo qayb geli karno oo ergo uma soo dirsan karno shirweynaha saas daraaddeed waxaan idinkula talinaynaa inaad muddo kale aad qabsataan oo aan idiin soo sheegi doonno arrinta anaga markaan qiimaynay maanta wuxuu ahaa shirkii kalfadhigii golaha dhexe buu ahaa ee ka horreynayay maaragtay shirweynaha markii aan qiimaynay oo aan rogrognay waxaa noo soo baxday oo aan ka badin weynay in aan markaa shirweynihii aan dib u dhigno oo aan muddada dambe ay maaragtay aan isku afgaranno ururka iyo isku afgartaan hay'adda nibe inaan markaa aan qabsanno go'aankaas ayaanu qaadanay saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xubnaha iyo ergooyinkii ka kala yimid gobollada iyagoo maaragtay annagoo aad iyo aad ugu faraxsan una danaynayna sida isku xilqaameen inay ka raali noqdaan arrintaas dib u dhaca ah wixii kale hawle ah inoo yaalana waanu qabsanaynaa ilaa berri oo muhiim ah kala warqaadasho iyo wacyigelin iyo maaragtay dardargelin iyo wixii ku saabsanna waan isaga iman doonaa laakiin shirkiisaas ayuu ku baaqday marka waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka ka soo qaybgeli lahaa shirweynaha iyo ergooyinkii yimidba inay ka raali noqdaan nagana sugaan wakhtiga dambe maaragtay aan u qaban doonno hadduu ilaahay yaraado aad iyo aad baad mahadsantihin